tiro cusub akhbaartoo kala jiiba xogo kala jaada raadiyo maanta weeyaan oo halkee ka maqlaa mawjadeeda jaleec 9.5 dhegtu way jeceshahay maalin iyo leel raadiyo maanta naftu way damataa raadiyo maanta qalbiga la jira maanta raadiyo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtiin baa kusoo dhawaada warka barqo idaacadda maanta muqdisho qodobada ay inii haysana waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in gargaar caafimaad oo dalka dibadiisa loo fidi doono dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay xeebta liido maamulka galmudug ee gobolada ayaa dacsi u diray dadkii khasaaruhu ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday xeebta liido ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saakay howlgallo lagu qaadayo isbaarooyinka yaalla gobolka Shabeellaha Hoose waxay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolkaasi saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in hadda ay bilaabeen howlgal ka dhana xarakada shabaab gudana ka sheegtay dagaal shalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolkaasi qaramada midoobay iyo dowladaha qaliijka ayaa waxay si wada jir u cambaareen weerarkii lagu qaaday hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho maamulka Puntland ayaa sheegay ama cambaaraya asagana weerarkii lagu qaaday hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo khasaaro ka soo gaaray dad rayada halkaas ku sugnaa wararka dibadda idaacadda maanta barnaamijyadan idin haysana dhegeystayaal waxaa ka mid ah toogasho lagu dilay dad ku sugnaa waa toogasho ka dhacday iskool ku yaalla wadanka Canada iyo waliba barafiyo khasaarooyin geystay oo ka daaya qaybo ka tirsan wadanka Mareykanka markale maalin wanaagsan barqa wanaagsan ayaa wadanka leeyahay waa subaxnimo sabtiga taariikhdu ku beegan tahay 23 bisha koowaad ee January sanada 2016 intaas maqasheen waa qodobada warka ugu doorka roona warka waxa soo saaray anigoo baashiya waxaana halkaan kala socodsiin anigoo baashiya farsamadana waa Faysal Xaaji inna u diyaar garooba warkii oo dhan maamulka galmudug ee gobolada dhexe ayaa waxa ay tacsiin tirayada u direen dhammaan dadkii uu khasaaraha ka soo gaaray weerarkii hamiin ka hor dagaalyahanada ka tirsan xarakada shabaab ay ku qaadeen hoteelada ku yaalla xeebta liido ee magaalada Muqdisho taasina intaas ka dheer waxa haya Muxudiin Cali Maxamed علي جعل عسل قدوميها برلمانك galmudug oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka hadlay weerarkii lagu qaaday hoteelada ku yaalla xeebta liido degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa dadkii ku dhintay iyo dadkii dhaawac ka soo gaaray ka hadlay wuxuuna uu dadka dhintay Ilaahay uu bariyay inuu jannada firtoosa ka waraabiyo inta ku dhaacantay inuu Allah bogsiyo sidoo kale wuxuu ka taasiyay xildhibaan kamid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka galmudug oo ku baxay weerarkii lagu qaaday xeebta liido hoteelada ku yaalla asiguna ehladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ugu bariyay inuu soo iimaan oo ka siiya waa kan gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo arrimahaasi ka hadlaya dadkii Soomaaliyeed xiyaalada aad u tirada badan ay ku gaareen hoteelkii liido kaasoo maaragtay aad aan u xumaay runtii dadka meeshaas ku gaara ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay subxaana wa tacaala ha ka bogsiiyo ummadda Soomaaliyeed anagu tacsiyo gaar ahaan dad badan oo aqoon ah oo mas-uuliyiin ku jirto ayaa caruur iyo hooyooyin iyo familyo ayaa halkaas dhibaato weyn oo aan la soo koobi karin runtii ay ku gaartay
ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaana u dambeeyey warbixintii uu ka diyaariyey waryaheena maxudiin cali maxamed lixle. dowladda federaalka soomaaliya oo hadda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegtay in gargaar caafimaad oo dalka dibadiisa loo qaadi doono dadkii ku dhaawacmay weerarkii hamiin ka hor ay dagaalino ka tirsan xarakada shabaab ku qaadeen hotelada ku yaala magaalada tan muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay booqasho ku tegey hoteello ku yaala xeebta liido oo hamiin ka hor ay weerar ku qaadeen qarar ka tirsan xarakada al-shabaab. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in hadda ay yaraatay awoodda xarakada al-shabaab ay ku lahaayeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayna hadda awoodooda kusoo koobantay ina weeraro isqarxin ay ku qaadaan goobaha ay isugu yimaadaan bulshada soomaaliyeed. meesha dhibaatadaasaa ka dhacday dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego nimankani duruuftooda iyo xaaladooda waxay ku sugan tahay madaxtooyada jamhuuriyadda weerar golaha baarlamaanka weerar guriga cadaaladda oo garsoorka maxkamada ay kuyiin gal inta ka waxay halkaasay ka yimaadeen hoteel gal weerar restaurant maqaayid dadka shacaba ay ka qadaynayaan ama ka cashaynayaan weerar way sii socdaan berrina waxaa la arki doonaa ayagoo meelo intaas ka sii nugan iskuul iyo suuqa iyo masaajidda iyo haddana ayagoo weerarayaa la arki doonaa berri habartooda maalin walba meeshaas sidaasay usii dhammaanay dadka dhiiggiisa inay daadiyaan mug wax kaloo uga soo haray malaha dagaal maaha dad rayida oo meel ku cashaynaya barxad fafadhiya inta loo yimaado xabad ooda looga qaadaay dagaal maaha kuwaas dhintay iyo kuwii ayaga oo ka xoraynaya ku dhintay waayo kuwii jihaaday oo jihaadka dhabtaa jihaaday ilaahay oo ajar iyo xasanaad ka siinayo ee ma aha kuwii soo dhibistay inay dadkaas dhiigiseen haddaan soo korno dhulkaas ay daadiyaan. xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo hadalka sii watay carab ku dhuftay in dadkii ku dhaawacmay weerarkii hamiin ka hor xarakada shabaab ay ku qaadeen hoteelada ku yaala magaalada muqdisho caasimada soomaaliya aana wax looga qaban karin gudaha dalka ay dowladda u qaadi doonto gargaaray wadanka dibadiisa ah. nimankan waa xaaqin dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya waa dhulkii xaaqinka iyo dhulkana xaaqinka way dhammaanayaan sidaasa awoodooda maalin walba usii daciifaysaa maalin walba waxay kusii aadaysaa dadka soomaaliyeed iyo dowladooda ayaana ka soo hari doona haddii aan la yidhaahdo inta dhimata allah u naxariisto inta dhaawacaana allah bogsiyo inta dhaawacaana wixii dadaal meeli oo soomaaliya ama wax looga qaban karin u baahna dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay dibadda u qaado. dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab ee dagaal kula jira militariga soomaaliya oo garab ciidankeela kuwa amisom ayaa amiin khamiisii sii baxaysay jimcaan ay soo gelayso waxa ay weeraro isdabajooga ku qaadeen hoteello ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana inta la ogyahay ku dhintay 20 ruux oo isugu jira dad rayida iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya halka in ka badan ay ku dhaawacmeen. saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee ka dagaalama gobolka hiiraanna waxay sheegayaan in halkaas dagaal ay kula galaan xarakada shabaab deegaano ka tirsan gobolkaas weeyaane ay ka gaareen guulo waxa ku oola sida warbixinta warkan uu ka ooyay cabdisalaam cali xuseen oo dhinacayga fadhiya. militariga dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ayaa si wada jira howlgallo baaritaanaha waxay uga sameeyaan qabo ka tirsan deegaanada gobolka hiiraan. mid ka mid a saraakiisha ciidanka oo lagu magacaabo islow qaasim rooble oo u warramay idaacadda maanta ee muqdisho ayaa sheegay in howlgalladii 24 saaca lasoo dhaafay ay sameeyeen ay kusoo qabqabteen rag ka tirsan al-shabaab haddana ay baadigoob ugu jiraan in ay baadigoobaan ragga ka tirsan al-shabaab iyo hubka ay wataan isagoo sheegay in dagaallo ay ku qaadi doonaan faysimaha al-shabaab ay ku leeyihiin weli gobolka hiiraan. howlgalka waa socdaa khawaarijta maartay dabarjibida baan ku haynaa insha allah meel kasta oo noogu sheegana maartay inta la garu haynaa insha allah howlgalka waa socdaa. howlgalkaas haddii sheegtay dabcan waa dagaal aad la gasheen al-shabaab maxaa khasaare ah oo dhankiina idin soo gaaray inta uu dagaalku socday? wallahi walaalow عزيمات منها إلى عدوية ويعررين مال كستو كجران ومركشالك ما يوضان مال كستو الواكر والجبيو هايا أيضا بالمايو هايا قارنا ويسجدين وعدو ويسجدين قارنا والدوجرا والوضان مال كستو يقلان والدبدلو هايا يوم ذلك الدريا يمكن دعاوة وذلك الزواس وضا marka dad azuumaan oo dagaal wax ku qaadi kara ma azuumaad ma laha marka dhankiina khasaaraha bal inoo sheeg. wallahi walaalo aad iyo aad aan khasaaro warna hadda wax dhibaato oo soo gaarayay wallahi annaga waxaan ka soo qaadnay meeleera la muqwasaar eeldero
degmada ceel cali degmada buuca qabno ilaa intuu dhexeeya intaasaan kala soo dagaalanay waa soo barakicinay kolba meelo oo ay ku guulmaaraysanayaan waa iska jiraan laakiin meelahaasna meelo xadidan oo hadda uu daba jiro waaye howlgalka waa socdaa hadda tacalbadanna nafteeda habeenimada howlgalaa iska jiro marka nimankaas meel kastoo lagu sheego waa wadaba jira may walaalana war meesha qasano ciidan baan ku abuurnaa ciidan baan u diyaarinaa saldhigaa laga dhigaa tababaraa laga furaa galbeedka hiiraan intaan soo marnay meel hadda laga tagay oo shabaab asoo dhawan kara malaha ciidamo oo markaas wadanka u dhalatay iyo dowladda federaalka baa dawlad hayso marka meel hadda la qabsaday oo laga tagay ma jiraan. saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ayaa kulamo isdaba jooga waxay ku qaateen galbeedka gobolka hiiraan si markaa ay uga hadlaan arrinta la xiriirta ammaanka iyo al-shabaab sidii gobolka looga saari lahaa. mahadsanid cabdisalaam. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saakaya howlgallo lagu qaadayo isbaarooyinka yaalla gobolka shabeellaha hoose waxay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolkaasi. waxaa la arkayaa ciidanka dowladda soomaaliya oo isugu jira police military iyo kuwa nabadsuuda oo saaka isaga kala gooshaya waxay isaga kala gooshayaan wadooyin ka tirsan ama deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo mararka qaar rag ku labisan dariiska ciidanka dowladda soomaaliya ay isbaarooyin soo dhigtaan. haddaba si aan faahfaahin dheeraad aan uga ogaano howlgalka saaga ciidanka ay wadaan iyo halkay ka wadaan waxaan khadka telefoonka ah goorna kula xiriiray waryaheena halkaas nooga soo warramo cumar macali abukar cumar wardoon bal si uu nooga warbixiyo howlgalka saaga ciidanka ay wadaan. cumar waxaa laga warbixisaa xaaladda gobolka shabeellaha hoose oo saaka la sheegaya in uu isku horamaad kooban ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo rag burcad. ayaa saaka weer ay ku qaadeen degmada argooye gaar ahaan inta udhexeysa wadada isku xirta degmada argooye iyo degmada mareere oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasna waxaa dictooyooyin kala ah ay uga yaaleen cad ah oo aanadii ugu dambeeyaba dhibaatooyin kala duwan ay u geysanayeen shacabka iyo sidoo kale gaadiidka u kala goysha labada dhinac waa degmada kale argooye iyo sidoo kale deegaankaas oo hoos yimaada degmada. waa gartay iswaramaadka inta loo yahay maxaa khasaare ka dhashay cumarow? baashi cali caashe waa mahadsan tahay sida wararka aynu ka helayno oo inoo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa goobta sirasaaseyntan ay ku dhex martay ciidamadan ka tirsan dowladda iyo kooxaha burcadda ah waxaa la sheegay in ilaa iyo ku dhawaad 5 ruux oo markaasi kooxihii burcadda ahaa in halkaas ay ku geeriyoodeen iyadoona ay jiraan dhaawacyo la gaarsiiyey sida ay inoo xaqiijiyeen sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo qayb ka ah howlgalkaas markaa lagu qaadayay isbaarooyinka sida sharci darada ah u yaalla degmada argooye waa duleedka degmada kale argooye waxaa inoo xaqiijiyeen in markaasi ay qaadeen ilaa iyo ku dhawaad 4 isbaaro oo markaa lagu dhibaateynaya dadka iyo gaadiidka ayna u yaaleen kooxo burcad ah oo maalmihii ugu dambeeyaba ay kusoo badanayeen duleedka degmada argooye isbaarooyin ay dhiganayeen halkaas marka wararkii ugu dambeeyey ee hadda laga soo gaaraya duleedka degmada argooye gaar ahaan meel u dhow deegaanka mareere waxa ay sheegayaan in halkaas ay ku sugan yihiin ciidamadan ka tirsan dowladda oo saaka waa berigii hore ay ka dhaqaaqeen gudaha degmada argooye iyagoona ujeedkooda uu ahaa sidii markaasi ay u xureen lahaayeen amaba ay u sifeen lahaayeen cid kasta oo markaa dhibaatooyin u geysata shacabka ku dhaqan degmada argooye iyo sidoo kale deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada. waa gartay cumar ayada dhinaca kale khasaare ah soo gaaray ciidanka dowladda soomaaliya war ma laga hayaa iyada? waa mahadsan tahay baashiyow waxaan la xiriirnay si aad wax badan aynu kaga ogaano sida horeyba kugu sheegay saraakiisha ciidanka dowladda oo hogaaminaysay howlgalkan waxaana aynoo xaqiijiyeen in hal askari oo dhaawac fudud soo gaaray in ay jiraan iyadoona sidoo kale ay sheegeen in aysan jirin wax khasaaro dhimasho ah oo soo gaaray marka laga reebo kooxihii burcadda ahaa oo markaas khasaaraha ugu badan sida hadalka u dhigan ay gaarsiiyeen sidoo kale ma jiraan dad rayid ah oo markaa howlgalkan wax ku noqday marka laga reebo kooxihii burcadda ahaa. baashi xilligan ay la hadlayso cumar wadoonow xaaladda gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka u dhow buumareer oo la sheegaya in saaka suramaadka ku dhex maray ciidanka dowladda iyo kooxaha isbaarooyinka dhita halkaas waa sidee? baashi cali caashe waa mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey ee hadda laga soo gaaraya deegaanka la yidhaahdo mareere oo hoos yimaada degmada argooye waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay degan tahay iyadoona goobihii iskorimaadyadu ay ka dhaceen ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo
kaasina wuxuu ahaa dhegaystayaal waryaheena cumar macali abukar cumar wardoon ee naga soo warrama gobolka shabeellaha hoose waxaana sidaa maqlayseen uu saakay halkaas nooga soo warinayay iska horamaada ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo rag ka tirsan waa rag isbaarooyin soo dhigta deegaano ka tirsan gobolkaasi ku dhex maray kadib markii ciidanka dowladda soomaaliya ay bilaabeen in isbaarooyin ka qaadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo inta badan lagu dhibaateeyo dadka iskaga kala goosha wadooyinka dhex mara gobolka shabeellaha hoose wixii warar kusoo kordhaa howlgalkaas ciidanka ay wadaan iyo halka ugu dambeeyaba wararkeena iyo barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaan haddii allah awooda la qadaro dhegaystayaal qaramada midoobay iyo sidoo kale dowladaha khaliijka waxay cambaarayeen weerarkii xarakada al-shabaab ay ku qaadeen hoteelada ku yaala xeebta liido ee degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya oo inta loo yahay 20 ruux ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa isha soo mariyay warbixintana ka diyaarshay Muxudiin Cali Maxamed. golaha ammaanka ee qaramada midoobay war saxaafadeed ee soo saarinaya waxay ku cambaarayeen weerarkii lagu qaaday xeebta liida ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxay sheegeen in weerarkaasi ahaa mid arxandara lagu qaaday shacab goob ku qaxweynaya saxaafadeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in uu taasiinay shacabka Soomaaliyeed ee saameynta ku yeeshay weerarka ka dhacay xeebta liida ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir golahu wuxuu amaanay ciidamada qaranka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada NISA waxayna sheegeen inay yihiin geesiyaal u dagaalamaya dalkooda sidii u soo badbaadiyeen shacabkii dhibaatada ka soo gaartay weerarkii lagu qaaday xeebta liida ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir golaha dowladda Soomaaliya wuxuu ugu baaqay inay ka fiijignaadaan weerarada aynkan oo kala oo xarakada al-shabaab ku qaadayaan goobaha ay iskugu imaanayaan shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta ugu sareyso dowladda federaalka Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo qaliidka carabta ayaa sidoo kale wasuuda jira u cambaarayay weerarka lagu qaaday xeebta liida ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir halkaasi oo dad aad u fara badan ay ku geeriyoodeen halka kuwa inta ka badan ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ka dhacay degmada cabdicasiis ayaa dowlado badan cambaareenaya ayadoona golaha ammaanka iyo wadamada qaliidka ay cambaareenayaan weerarkaasi lagu qaaday hoteelada ku yaala xeebta liida degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir mahadsanid lixle weli waxaan ku guda jirnaa khasaarihii ka dhashay weerarkii habeenka hore ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku qaadeen xeebta liido halkaas hoteelada ku yaalaan ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dad rayada oo halkaas u soo damashaa tagay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas dhinaciisa waxa uu cambaareeyay weerarkii hamiinkii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay xeebta liido halkaas oo ay geysteen dagaalana ka tirsan xarakada shabaab qasaarana oo ka soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dad rayada Cabdisalaam Cali Xuseen ayaa mar kale warkan qaada dhigaya habeenkii qamiista oo jimcaha soo galeysay ayaa weerar culus shabaab waxa ay ku qaadeen hotel ku yaala xeebta liida ee magaalada muqdisho cambaarooyin kala duwan ayaa loo soo jeediyay xarakada al-shabaab oo weerarka geysatay cabdiweli maxamed cali gaas oo ah madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sheegay in fal laga argagaxo ee al-shabaab mar walba ka geysta gudaha Soomaaliya haddana si weyn u cambaareenayaan isagoo oo markaa ka tarjumaya shacabka iyo mas'uuliyiinta Puntland الله ونحرسته انت لا وإلهي هو بوديه إلهي هكذا بالبادية وحمد رجال عاطمة دقدر وصل على أوسيه وحمدتي سألوا عن بعضين فالكاس وحشنبه كوحدة الشرطياش الشباب يوم يستمر مساكين هاي الصوماليين ورشوا العادية يروحوا لغيرهم العويني dhibaatay tasliga soo gaarsiiya aad iyo aad ugu xanaay ama ku hadlay madaxa shacabka iyo xukuumadda iyo dowladda Puntland waxaan u direynaa taasi ehelii iyo asxaabtii iyo dadkii ay ka dhinteen oo ka dhaawacmeen dadkaas masaakiinta waxa suuqay magaalada Xamar aad iyo aad ugu xanaay al-shabaab ayaa sii kordhinaysa weerarada ay ku qaadayso xarumaha dowladda iyo weliba xarumaha kale ee dadku iskugu yimaadaan iyadoo al-shabaab ay sheegto inay ku disho mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo ciidamada kale ee ajaanibta ay jooga Soomaaliya waxaana dowladda Soomaaliya laftigeedu sheegaysaa qataraha al-shabaab ay wataan inay wax badan ka qaban doonto laakiin si weyn uma muuqato mahadsan Cabdisalaam qaar
qaar ka tirsan shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduudna waxay iminka ka cabanayaan waxay ka cabanayaan rag ka tirsan culimada adduunka al-sunna wal jamaaca ee gacanta ku haya deegaanka waa degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud dadkan oo qaarkood diidayna codkooda iyo magaceedaba warbaahinta loo adeegsado waxay hadda sheegayaan culimadoonka al-sunna wal jamaaca ay ku hayaan cadaadis taasoo ay ka mid tahay markii culimadoonka al-sunna wal jamaaca ay sheegeen in qof taageersan maamulka galmudug ee isaguna ka arrimiyay qaybo ka tirsan goboladaasi aysan jirin qof ka taageeri kale magaalada dhuusamareeb waxay sidoo kale shacabku sheegayaan in hadda culimadoonka al-sunna wal jamaaca ay shaqaaqo ka wadaan iyo dhibaataynba magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waa sida ay sheegayaan shacabkaas oo diiday inay codkooda iyo sidoo kale magacooda warbaahinta loo adeegsado culimadoonka al-sunna wal jamaaca ayaa khilaaf siyaasadeed wuxuu kala dhexeeya maamulka galmudug hadda hogaamiye cabdikariim xuseen guleed fadhiguusuna yahay magaalada cadaado inkastoo ay jiraan in hadda ma la filayaba in wadahadlo ay u socdaan maamulka galmudug iyo culimadoonka al-sunna wal jamaaca tan iyo markii lagu dhawaaqay maamulka galmudug waxaa jiray in khilaafka siyaasadeed oo udhexeeya maamulka al-sunna wal jamaaca ee isku magacaabay dhuusamareeb ka jira iyo maamulka galmudug ay ka taagnaayeen gobolada dhexe ee dowladda federaalk waa gobolada dhexe ee soomaaliya walow dowladda soomaaliya ay sheegtay in xal laga gaari doono khilaafka udhexeeya maamulada waa maamulka galmudug iyo culimadoonka al-sunna wal jamaaca ee ayagu isku magacaabay magaalada dhuusamareeb iyo xarunta gobolka galgaduud halkaa warkaa kala socotaan waa hadda maanta muqdisho in kaga gacan hadisa mawjada FM dhirku yahay 95.5 megahertz iminkana dhageystayaal akhbaaraadka dibadda toogasho ayaa ka dhacday iskuul ku yaala wadanka Canada kadib markii halkaas dabley hubeysan oo buskooda ku hubeysan ay weerar u galeen iskool ku yaala wadanka Canada halkaas waa iskoolkan oo ku yaala wadanka Canada ay xalay weerar ku qaadeen kooxahani booliiska wadanka Canada ayaa waxa ay sheegayaan in 4 qofood lagu dilay weerarkan oo ay ka dhacay iskuul ku yaala gobolka lagu magacaabo Saskatchewan oo ku yaala bartamaha wadankaasi warar hordhaca ayaa hadda ka soo baxaya weerarkaada waxaa la sheegayaa in qof shanaadba uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala wadanka Canada kadib markii khasaarihii ka soo gaaray weerarkii dableydan hubeysan buskoodaha wata ay ku qaadeen iskoolkaas oo ay ku jireen qiyaastii in ka badan arday wax ka baranaysa oo qiyaastii tiradooda lagu tilmaamay in boqol oo arday iyo macallimiintoodaba sidoo kale mas'uuliyiin kale halka ku sugnaa ayaa la leeyahay ciidamada ammaanka wadankaas Canada gaar ahaan kuwa booliiska waxa ay sidoo kale sheegayaan in ay gacanta ku soo dhigeen ruux looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay weerarkii xalay ka dhacay halkaasi haddana ay gacanta ku hayaan kaasoo laga qabtay afaafka hore ee iskoolkaasi waxaa sidoo kale ay sheegayaan booliisku in sidoo kale ay gacanta ku dhigeen ama ay baarayaan sidoo waa toogasho ka dhacday deegaano ka tirsan ama gobol ka tirsan wadanka Canada oo iyadana ay geysteen kooxo dabley oo afafka soo duubtay waxa ay sheegayaan booliiska wadankaasi in galinka dambe ay maantay warbaahinta u soo bandhigi doonaan khasaarihii ka dhashay weerarka xalay dableyda hubeysan ku qaadeen iskoolka ku yaala wadanka Canada iyo sidoo kale gobol ka tirsan wadankaasi inkastoo hadda ay sheegayaan in khasaaruhu la filayo ama mar kastaba la firo karo inta ka sii bato ugu dambeyntiina baraf aad u xoogan ayaa wuxuu ka daayaa qaybo ka tirsan wadanka Mareykanka oo la sheegayo in hadda barafkaas uu saameyn ku yeeshay deegaano badan oo ka tirsan wadanka Mareykanka barafkan oo aad u xoogan ayaa la sheegay inuu bilowday shalay galinkii hore ilaa iyo intii ka dambeysana uu saameyn uu ku yeeshay bulshada reer Mareykanka barafkan ayaa la sheegayaa inuu noqon doono kii boqolaad oo wadankaas Mareykanka qaybo ka tirsan ku dhufta tan iyo intii Mareykanka uu shaqeynayay deegaano ka tirsan wadanka Mareykanka ayaa hadda la sheegay in gabi ahaanba ay saaka yihiin kuwa dansan kadib markii barafkaas uu saameyn ku yeeshay warkii waad kala socoteen hadda maanta muqdisho dhageystayaal oo aan ina soo saaray anigoo baashir halkan ay kaga tabinayo Faysal Xaajina waa farsameynaya sidaas iyo nabadgelyo